dawo hela way termska kale loo isticmaalo isaga waxa kamid ah pharmacy-gu waa pharmacy iyo pharmacology waa la isku khaldaa pharmacy-gu marka aad adigu baranayso pharmacy baad baratay pharmacy-gu ma aha meeshii wax lagu iibinayay laakiin waxa la yiraahdaa waa qofka si professional ah wax u barta sida dawadan loo isticmaalayo inta jeer la isticmaalayo qofka sida u baranayo waxa la oranayaa pharmacy qofka pharmacology-gu wuxuu bartaa sidii loo soo saaray dawadan xilligii la soo saaray kimikaalada ka kooban tahay sida saameynta ugu yeelanayso jirka iyo sida ugu la falgelayso receptorada u qabsanayso qofku wuxuu baranayaa noocaas baranay marka pharmacology-ga joogo waa biomedical science waa hab kimikaaladii iyo sidii jirka u qabsanayso nidaamyadeeda u baranay pharmacy qofka la yiraahdo ama qofka yiraahdo pharmacy baan ahay waa qof baranaya sidii loo isticmaalayo dawada waa intaas tusaale ahaan qofka makaaniga iyo qofka driver-ka ah qofka makaaniga wuxuu garanayaa meel kasta oo gaariga ka xun yahay laakiin qofka driver-ka inta badan waxa laga yaabaa inuu kaxeeyo gaariga marka qofka pharmacy waa qof kaxeynayo laakiin qofka makaaniga waa pharmacology qofka pharmacy qofka driver-ka waa pharmacy yani saas inuu kala tusaaleyna way dhowr kalmadood baa halkan noogu yaala pharmaceutical-ku waa substance waa walax which have medical properties considered wax kasta oo loo qadarinayo inay tahay medicine ama dawo tahay waxaan la pharmaceutical salaan meelaha lagu iibiyo dawooyinka waxa la yiraahdaa alaami pharmaceutical yani waa meel kasta oo wax kasta oo dawo iibinaya wax kasta oo la tacaalo pharmaceutical oran physiology waxa weeyaan amountiga qadarka dawo ee qofka daweyn karta loo baahan yahay the amount of drug which is required for therapeutic effect therapeutic effect macna inta daweyn karta qof ayaa la yiraahdaa toxicology waxa weeyaan waa in la barto ama harmful effect-ga inta khatarta ku ah qofka ama inta khatarta ama inta sunooga ku ah qofka ama living tissue-ga intan qofka tissue-ga qofka dhaawici karta in la barashadeeda la yiraahdo drug horaan soo sheegno waa kelmad loo isticmaalo horta drug kelmad ka timi weeyaan French word kelmad French ah ama France ah kelmad luqadda France-ka ah oo dragu la yiraahdo macnaheedu wuxuu ahaa dry head geed qalalan ayaa la yiraahdaa marka Faransiiska loo bedelo inta badan waxa lagu qeexaa waa substance or material waa wax ama shay taasoo marka la falgasha ama wax ka bedesha physiological process habka uu jirku u shaqeynayo ama pathological state xaalad marka xun inay falgal ku sameyso ama wax ka bedesho iyadoo ay doonayno inay faa'iido ka helo waa intaas gebgeeba dawadu gebgeeba wuxuu yahay hadii lagu dawo qeex gebgeeba waa walax la falgalaysa si ay jirkan wax ugu bedesho sidoo kalena ay jirkeenana meel taagan wax ka sii yihiin ay modification ugu sameeyaan isbedel ku sameyso waa intaas waayahay pharmacognosy waa maxay pharmacognosy waa kelmadaha marka waxaan ku jirnaa kelmadaha loo isticmaalo si aan hadhow waxaan u faahfaahin waa branch ka saabsan aqoonta science-ka ama medicine-ka marka waxa laga hadlaa inta badan laga hadlaa pharmacognosy halka dawadan laga helo drugs obtaining hadii laga helo either laga helayo from the plant dhir hadii laga helayo or other natural source hadii laga helayo waxyaabo kale oo science ama nature ah ama waxyaabo source kale oo nature ah pharmacognosy waxa la yiraahdaa halkee laga helay dawadan waa intaas barashada la baranayo halka laga helay dawadan halkay ka soo baxday baa la yiraahdaa pharmacognosy pharmacogenetics waxa weeyaan waa in dawada ama dawooyinkan lala xiriiriyo waxyaabo hidisiyaale ah oo tusaale ahaan in laga soo saaro dawadaba hab la mariyo dawada in laga soo saaro tusaale ahaan oo kale muxuu ahaayay hab loo isticmaalo genetic hidisiyaal oo kale loo isticmaalo ama genetic engineering oo kale la isticmaalo oo qofkan insulintiisa tusaale insulinta aan ku ah pharmacogenetics marka la sheegayo nidaamyo noocaas oo kale in laga soo saaro iyadoo dawada laga soo qaaday tusaale ahaan oo kale waxaan si dhow u sheegi karnaaba bacteria-da waxa laga dhashay marka qaarkood in la aad fahmin baa laga yaabaa meelaha insulinta laga soo saaro waxa kamid ah bacteria-da ayaa lagu dhex tarsadaa qayb kamid ah insulinta deedna way badanaysaa deedna waa laga soo dhex saaraanay insulintu waxa weeyaan bahashan loo isticmaalo
muxuu ahaayey macaanka ama dawooyinka macaanka loo isticmaalo si loo badiyaa looga soo saaraa. Marka waxa hab la adeegsanayaa hab la yidhaahdo pharmacogenetics hidde-sidaha ayaa looga faa'iideysanaya. Marka mar kasta oo state of the inherited genetic differences in drug metabolism pathway, mar kastoo la baranayo wax kastoo inherited genetics ku xiran waxaa la odhanaya pharmacogenetic baa la odhanaya. Either ha ahaado inaynu enzyme isticmaalo, inaynu isticmaalo messengerskii ku dhex jiray DNA-da, receptorskii inaynu isticmaalo, waxaasoo kale markaynu isticmaalan waxaan odhanaynaa waxaas waa wax kale. Marka ama markaynu leenahay waxaa laga soo saaraya receptor batch, receptor baa kala kaleynaya kan kale waxaanu baranay wax ku saabsan genetics. Markaynu leenahay sidoo kale saameynta kasoo baxday markaynu wax daweyno, khasaaraha kasoo baxay dawada markaynu darsino isagana adverse effectiga ama side effectiga, khasaaraha iyo ceebta kasoo baxday dawada markaynu baranayno waxaan odhanaa pharmacogenetics baan odhanaa. Waayo qaybtana waxaynu kusoo qaadanaynaa laba kelmadood ugu dambeeya. Labadan kelmadood markaa aad baynu isticmaalnaa, waa terms loo isticmaalo, waana branches. Qolooyinka hore qaybo branches ku jiray. Pharmacokinetic waa maxay? Pharmacokinetic waxa weeyaan waa barashada la baranayo biological systemka la baranayo. Waayo biological systemka effect saameynta uu ku leeyahay waa barashada la baranayo saameynta uu biological systemku ku leeyahay on the drug. Siduu jirkeenu u shaqeynayo ama siduu jirkeenu saameyn ugu leeyahay dawada ayaa la baranaya. Marka laga si fudud waxay oran karnaa what does the body do the drug? What does the body jirku do the drug uu ku sameeyo dawada uu ku sameeyo. Example maxaa ah admin wax la yiraahdo. Tusaale ahaan admin maxaa loo soo qabsadaa absorption, distribution, metabolism iyo excretion. In wax la nuugo, wax la fidiyo, wax la metabolism lagu sameeyo la burburiyo iyo excretion in wax la saaro. Intaasaa la yidhaahdaa siduu saameynta uu jirku ugu leeyahay dawada ugu leeyahay. Kan kale waa maxay? Uu ka soo horjeedaa siday dawadu jirka saameyn ugu leedahay weeyaan. Markana dawadiiba jirka saameynta ugu leedahay baan baranayna. Maxay ku sameysay dawadu jirka? Ka horana waxa weeyaan maxay jirku dawada ku sameeyaa? Labadaas weeyaan. What study waa barashada la baranayo effect of the drug, saameynta dawadu on the biological system jirka ay ku leedahay. Biological system saameynta biological systemku ku leedahay ama siduu jirku u shaqeynayo ay ku leedahay. Marka simply waxa oran karnaa what does the drug waa waxay dawadu do the body ay ku sameyso bariga ama jirka ku sameyso, ama receptor ha ugu samarto ama wax kale ha ugu samarto waxa soo dhac. Marka mid baan u qaadan doonaa pharmacokinetic sidii jirka ugu mata, pharmacodynamic sidii jirka ugu saameysa. Taa markaynu qaadano marka wax walba inoo jilicsan yahay. Khayr bay idin rajeenaa insha Allah ta'ala.